وعذاب المغامر تصني وبرها تهم بين السلام عليكم أصحاب مركز تدريب كشبتان أدبين إسلامية ومركلة يوم مقالكلة waxaan dul maraynaa dooxa ugu weyn ee loo yaqaano Dacar Buruq waa mid ka mid ah dooxida ugu waaweyn dooxida u dhaxeeya Hargeysa iyo Berbera waxaan hore uga soo duubnay dooxii aw barkhadle fiidiyowga hore fiidiyowgana waa fiidiyow kale dooxa ugu weyn Dacar Buruq iyo mashruuca DB Wall iyo wadadii cusbayd dooxu gabiba waqooyin yahay meelaha qaar biyo badan baa fadhiya dad baa dhar ku meeranaya inay halkan barish ku bilaamaya sidoo kalena barishkana waxaa loo sameeyay meel ay dadku maraan halkan ay dadku marayaan halkaasina waa meel la iskaga keenay ama iskaga imanayaan labada segbadood ee بريشكو كوبية ما قيبها بريشكو كوبية وملاها اسكاجي منايو markastoo gaarigu dul marana gig oranaya marka ciyaal baa halka ku dabaalanaya inaan soo heli karnayo in kale wallahu aalam maadaama dumar dhar ku meedanayaan oo isku day doonaa inaan soo helno masha Allah si qurux badan baa loo dhisay halkaas waa akhro taas ayay wadadii hore maraysaa laga guuray marka bartay dadku ku dabaalanayaan ama carruurtu ku dabaalanayaan ama dharka lagu meelayo bartaas weeyaan iyadana waan soo eegi doonaa si aan isku barbardhigno wadadan cusub iyo wadadii hore waaw masha Allah dooxan baa dooxii aw barkhadle ka weyn masha Allah dhulkayna nabad ku dhex lugeynaa dhulkeena ayaynu nabad ku dhex lugeynaa insha Allah inta kale aan isku dayayna un talaabo gebi ahaanba dooxu uu qoyan yahay hadda biyaa socda oo halkiisa aan ka hoose isku dayi doonaa inaan halkaa ka daadigno oo soo wareegi doonaa biya maraya shukri baa joogta waan isku dayi doonaa in xagga hoose tagno xaggaas ka soo wareegi doonaa xaggaas aan ka daadegno xaggaas soo wareegi doonaa xaggaas aan doonaa okay halkaas aan ka soo daadegnay dhinacanina waa wadada qaybteedii kale ama qaybteedii waqooyi weeyaan halkaasuu barish ka bilaabmayaa meesha dooxu marayo intana waa intii lasoo dhisay ee kor loo qaaday si ayna ciiddu muxuu haayay usoo fagman ama usoo dumin ayaa sagbadaas lagu sameeyey oo maasha Allah halkanna waxaa ka xiga dooxii oo dadku dharkoogii howlahooga ku wataan marka aan dhinac maraynaa wadadii kalena halkaasay maraysaa ee qadiimiga ahayd iyadana waynu soo fiirin ama waynu soo eegi doonaa insha Allah waxaan ka horeynaynaa intaynaan wadada hore soo eegin aynan isbarbar dhigin waxaan eegi doonaa qaybta hoose ee barishka inkasta oo ay biyo leedahay ama uu dooxu biyo socdaan oo qulqulayo haddana waxaan isku dayi doonaa in aynu ka talowno aynu soo eegno aynu hoos marno si ayna cidna kugu sheegin oo ayna ku odhan dooxii Dacar Buruq si fiican baa loo dhisay ama barishkii Dacar Buruq waa sidaas si aan lagaga waraminba ayay waxaan isku dayaynaa in aynu hoos istaagno halkaas maadaama uu dooxu socda oo biyo badanna leeyahay oo laga yaabo inuu xalayna soo rogmaday haddii aynu meel aynu ku istaagno aan dhagaxaan lahayn laga yaabo inaan lugaheenu inoo casmaan marka
insha allah markaa waxaan isku dayeynaa inaan dul marno meelaha dhagaxa leh. way arkaysaan kastoo dabeyl dhacayso kamaradeyda waxay u baahan tahay microphone si aan dabeysha aan loo maqal. meelaha aan dabeysha lahayn waa caadi, laakiin meelaha dabeysha leh ayaa shuuq ba jira. okay wakaas biriishkii. kan biriishkan wuu weyn yahay, kii hore ilaa 3 kaabood buu hawaan filaya. kani waa 1 2 3 4 5 6 libilaab weeyaan. kan biyaha qulqulaya. ina codka biyaha maqlisiin baan filaya insha allah. iska ilaalinaa, waxaan isku dayeynaa mar kastaba inaan ku istaagno meesha dhagxaanta leh. hadii kale meel qus. maasha allah tabaaraka allah. waxaa la sameeyey si ayna tiirarkan waaweyn ee la dhisay u fagmin ama u qodmin, ayaa waxaa la sameeyey dhagaxaan badan iyo shabag iyo dhagaxaan ayaa la isku xidhay, kabacdi waa xagga hoose la dhigay. saasaan filayaa, laakiin qolada dhismaha iyo wadooyinka sida loo dhiso garanaysa ayaa garanaya, laakiin aqligayga waa saasaan ku miisaamay. maasha allah. wuxuu socdaa biyaha way qulqulayaan. insha allah. way biyo leedahay. halkaas aan socon doonaa. waa tiirkii koowaad ama labadii tiir ee ugu horeeyay ee mataanaha ah. okay halkaas ku wadinaa. halkaana waxay naga horeeyaa tiirar kala badan. waan soconnaa. leydh waxaa dhacaysaa aad iyo aad qow ayaa ka dhacaysa meesha. dhulka horeys ah iyo dabeyl ka dhacaysa iyo hawo badan, markaa qabow waa dareemaysaa. meeshan oo dhan dhagxaan baa ayaa iyo taar iyo shabag waxsaasaas kugu xidhay. qodxa badan bay leedahay meeshan, waayo biyo waxay soo qaadayaan geeda dheer, waxyaaba badan bay soo qaadayaan. waa inaad iska ilaaliso marka ku dul socoto, haddii kale biriishku xaggaas uu dheer yahay. xogaa bayn soconnaa. laakiin kan weyn waa mashruuc fiican weeyaan. gaadhiba xagga sare maraya, dugdug baad maqlaysaa. halkan waxay nooga muuqataa waddadii hore ee laga guuray ayaan kusii soconnaa. waddadii cusbayd wataas iyo biriishkii. halkanna waxa ah waddadii hore ee laga guuray ay xaggan maraysaa. waddadii hore waa tan, halkaasay maraysaa, dooxay ka talaabaysaa, halkaas ka dhacdhacaysaa. halkan daadad iyo roobaab dad badan ku qaaday iyo gawaadhi badan, laakiin alxamdulilah imika ka biriishkaa la sameeyey. ما شاء الله.
asxaabta muuqaalka intaasan ku joojin doonaa aad iyo aad baan islaamayaa waa inoo mar kale iyo muuqaal kale. السلام عليكم.